marka koobaad intaas aad carabka marisay iyo intaan mariyeyba anigoo wakiilkoodii oo afkoodii ku hadlaya waxaan u hambaliyeynahayaa doorashada ka dhacday maanta dowladda goboleedka puntland waxaan ugu hambaliyeynahayaa 100% sida doorashadaas u dhacday sharafteeda iyo nidaamkeeda iyo kalsoonideeda baan ugu hambaliyeynahayaa puntland oo dhan taariikhdayna u lahaan jirtay waxaanan u hambaliyeynahayaa madaxweynaha misna سعيد عبد الله oo loo doortay asna si gaar ah ugu hambaliyeynayaa waxaan kula talinayaa ugu ducaynayaa inuu Soomaaliya meel ay joogtaba isu keeno taas ahaan Puntland sharaf iyo magac iyo baawis isu soo hooyo Soomaaliya meel ay joogtabana isku xiro nabadeeda iyo midnimadeeda oo ka shaqeeyo heer qaran iyo heer dowlad goboleed iyo heer deris intaas oo dhan hawshaas xilka maanta uu qabtay xilmigeeya oo muuqda inuu noqdo waan ugu ducaynaynaa kulana talinaynaa intaas markaan ku gudbo waxaan Soomaalida kale oo doorashooyinka ay ku timaado dhan inay uga daydaan oo doorashadaas oo kale doorasho kasta u dhacdo baan gobolada kale dowlad goboleedyada kale doorashadu ka jiraan nidaamkaas in ay u dhacdo baan ayagana kula talinayaa inta markaan ka gudbo dalka Soomaaliya dhibaatooyinka ka jira oo dilka iyo colaadda ah waxaan ugu baaqayaa kana codsanayaa meel kastaba in laga joojiyo colaaddaas sida Galansoor saxna dhaaliya dacdeer sida dowlad goboleedka kiiganka shanaad sida hiiraan iyo intii la xiriirta oo galmudug iyo hiiraan isku xirta colaadda ka jirta in la tirtiro sida haddii la kuudmahayo qodobale iyo guriceel howlaha waxa ka jira in ayadana la suuriyo sida dowladda Soomaaliya mucaaradiyada ka jira oo qarannimadeena iyo horumarkeena wax yeelaysa in laga tanasulo Soomaaliya ha noolaato ha israacdo ha midowdo qarannimadeena iyo sharafteena Soomaalinimo allaha noo soo cesho intaasaan ugu baaqayaa markaan ku soo laabto Puntland waad mahadsantihiin doorashadiina mid sharaf leh oo lagu daydo oo la raaco weeye madaxweynuhuna ha noolaado ilaahayna waxa la qabto intaasaan ku soo ururinayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaikum salaam waraxmatullahi aad ma santahay ugaas